waxay ahayd in maanta lagu kulmo Muqdisho balse taasi ma aysan dhicin madaxda maamul goboleedyada ayaa qaadacay shirka uu madaxweynaha iclaamiyay 8 September shirkaasi waxa looga hadli lahaa amniga siyaasad loo dhan yahay iyo dhaqaalaha sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo war murtiyad soo saaray ayaa shuruudo ku xiray shirkaas waxayna sheegeen in ammaanka Muqdisho uusan saamaxaynin kulanka iyo in dhexdhexaadiyaal la helo laakiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa arintaasi diiday waxaan soo dhaweynay in la yiraahdo magaalada madaxda dalka lagu shiri karo oo amni ma aha ma garanayno cid loogu danaynayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaas tiraahdo inay tahay astaanta qaranka sidoo kale waxaan soo dhaweynay in la yiraahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhaxgalo kulankii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ku yeesheen Kismaayo ayay ku sheegeen in ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay ku fashilantay fulinta heshiisyo hore loo wada saxiixday kulan uu maanta baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho uu ku yeeshay waxa si adag loogaga dooday xaaladda amniga ee magaalada iyo sida dawladda ay u wajahdo Muqdisho waxa hore ugu shiri jiray madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada maxay tahay sababta aan hadda loogu kulmi karin طبعا حمر انت جري جرتي هذا waa ka jirta oo wax dheeri hadda oo de amni soo kordhayna oo wanaagsana ma jiro xumaan oo hoos u dhacana ma jiro laakiin ayagu waxay u jeedaan yani shakhsi ahaan waxay u jeedaan sida caadiga waxay u jeedaan siyaasadan heshiis lagu ahay hadii siyaasadda heshiis lagu yahay goob dagaal waa lagu hadli karaa laakiin hadii aan siyaasadda heshiis lagu ahayn Makal Mukarrama Kacbada dhexdeeda lagu ma hadli karo marka waxa muhiimka waxa waaye waa in siyaasadda heshiis lagu yahay laakiin khilaafyada noocan ah way soo noqnoqdeen waxayna soo jiitamayeen tan iyo dawladihii ka horeeyay midan haddaba maxay tahay sababta looga gudbi layahay xal waxa noqon kara markii u horeysa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya markii loo dhiibayo oo xilkeeda loo dhiibayo siyaasadda Soomaaliya waday ku socotay wadadii inuu ku soo laabto oo wadadii oo maro siyaasadda hadii laga shaqeeyana isqabad waa dhaca inay noqoto waxa la dhaho win-win approach inuu asaguna guuleysto nimanka madaxweyne goboleedyada ay guuleystaan oo la wada guuleysto aqalka sare ee Soomaaliya ayaa guddi u saaray xalinta khilaafkan waxayna ku kala maqan yihiin maamul goboleedyada balse dawladda federaalka ee Soomaaliya waxba kama aysan dhihin wali waa waantan uu furay aqalka sare Axmed Xaaji Xasan BBC Muqdisho